السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال soo dhawaada ilhaantiiba halkaan naga daawanaysaa waa channelka anigana waa Cabdullaahi. Daawadayaal si u jeedaan maanta waxaan isoo gudbin doonaa muuqaalo aad iyo aad idin xiiso geliyo inkastoo maalmahan aan kala maqnayn arrimo jira awgeed balse maanta waxaa idin wadaa barnaamijkeena hore nooga baran balse aan isku dayi doono insha Allah tacaala inaan hadda ka bacdi taxanan iga dhigno haddii Ilaahay nafsada uu gaarsiiyo. marka maanta waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeediyo daawadayaal 10 wadan ee ugu dalxiisayaasha badan sanadka 2021 dad badan ayaa isweydiin doona sanadkii 2021 iyo 2020 wuxuu ahaa sanadada ugu saameynta badneed dunida ee ka dhacay cudurkii aadka u saameeyay adduunka coronavirus. sidaas ay tahay sanadkan 2021 waxaa jiro dalxiisayaal aad iyo aad u fara badan oo wadamo badan booqday maadaama cudurka coronavirus ee dunida haleelay ay shaqooyinkooda fasax ka dhigay. marka daawadayaal waxaan soo qaadan doonaa halkan 10 wadan ee ugu dalxiiska badan sanadka 2021. kaalinta 10aad waxaa sanadkan soo cariirsaday dalka UK ama United Kingdom. dalka UK waxaa sanadkan booqday 36.3 milyan oo dalxiisayaal. dalka UK dad badan marka dhagteeda kusoo dhacaan waxaa kusoo dhacaysa magaalada London ee caasimadiisa ee quruxda badneyd ayagoo isu dhigi doona maxay tahay kaalinta uu galay balse daawadayaal muhiimadu waa soo jiidashada iyo quruxda iyo bilicda dhoolka. marka dalka UK wuxuu soo cariirsaday kaalinta 10aad halka kaalinta 9aad ay soo gashay dalka Thailand caasimada Bangkok. dad badan ayaa laga yaabaa inay Bangkok maqlaan ama filmaanta ku maqlaan ama meelo kale ku maqlaan. Bangkok ama Thailand waa dal aad iyo aad u qurux badan ay soo booqdaan sanadkii dalxiisayaal aad iyo aad u fara badan iyagoo ka sameeyo dalxiisayaasha soo booqdo dhaqaale aad iyo aad u fara badan. sanadka 2021 daawada waxaa soo booqday dalka Thailand 38.2 milyan oo dalxiisayaal iyadoo ay ku yaalaan goobo aad iyo aad u qurux badan. waxaan rajaynayaa adiga muuqaalka daawanaya inaad booqan doontid insha Allah tacaala Thailand. dalka 8aad waxaa soo cariirsaday dalka Germany. dalka Germany waa asagana meel aad iyo aad u qurux badan ay ku yaalaan goobo dalxiisayaal oo indhaha soo jiidanaya daawada. waxaa asagana sanadka 2021 soo booqday 38.8 milyan oo dalxiisayaal iyagoo dowladda Germany ay ka sameeyeen muuqaalo aad iyadoo dowladda Germany ay ka sameysay lacag iyo dhaqaale aad u fara badan dalxiisayaasha soo booqday. daawadayaal kaalinta 7aad waxaa soo cariirsaday dalka Mexico. dadka badanaa markay maqlaan Mexico waxaa ku soo dhacay waxyaabo badan. Mexico waa iyadoo ah magaalooyinka ugu halista badan dunida ama ah magaalooyinka ugu tuugada badan haddana waa magaalooyinka ugu dalxiiska badan dunida ama dalxiisayaasha ugu badan ee dunida ay booqdaan daawade. sanadka 2021 waxaa booqday magaalada Mexico 41.4 milyan oo dalxiisayaal ayagoo kusoo qaatay waqti aad u qurux badan. dalka Mexico waxa waaye dalalka aad ugu quruxda badan dunida ayuu ku jiraa asagoo sanadka 2021 soo cariirsaday kaalinta 7aad daawade. kaalinta 6aad waxaa soo galay dalka Turkiga. dalka Turkiga saa wada ogsoontihiin Soomaali badan way ku nooshahay haddana waa wadamada aadka ugu dalxiisayaasha badan ee dunida ay soo booqdaan maahan kaliya inay Soomaali tagaan laakiinse dunida dhan ayaa laga soo booqdaa dalka Turkiga ayadoo uu ku yaalaan meelo aad iyo aad u quruxda badan. sanadkan waxaa soo booqday 45.7 milyan oo dalxiisayaal iyadoo dowladda Turkiga ay ka sameysay dhaqaale aad iyo aad u fara badan dalxiisayaasha soo booqda dalkeeda. sanadkan 2021 waxay soo cariirsatay dalka Turkiga kaalinta 6aad daawada. dalka 5aad ayaa wuxuu noqonayaa magaalada Italy dalka Italy Roma. dalka Talyaaniga waxaa soo booqday sanadkan dalxiisayaal aad iyo aad u fara badan iyadoo kaalmihii hore ay u joogtay ka soo horumartay. sanadka 2021 iyadoo saameyn badan ay ku yeelatay dalka Talyaaniga coronavirus-ka haddana wuxuu soo cariirsaday booska 5aad 2021 dalxiisayaasha ugu badan adduunka inay booqdaan dalkaasi waxaana booqday daawada 62.1 milyan oo dalxiisayaal. markaad maqashay Talyaaniga waxaa kugu soo dhacayso hadalhayntii ama halhayska ahaa Roma hal maalin laguma dhisin. marka sanadkan waxay noqotay sanadka dalxiisayaal soo booqdaan 62.1 milyan. markaasi ahaan loo fiiriyo 62.1 milyan tiro aad u yar maahan waa tiro aad u badan. marka booska 5aad ayay soo cariirsatay dalka Talyaaniga ee caasimadiisana tahay Roma. daawade waxaa kaalinta 4aad soo galay dalka China. markaan maqashaan waxaa waa dad badan waxyaabo badan ayaa kusoo dhacay in coronavirus-ka meesha ka imaaday
dalka China wuxuu noqday dalka kaalinta afraad soo cariirsaday oo sanadka 2021 ay booqdeen dalxiisayaasha ugu badan dunida daawade waxaa booqday dalka China 62.9 milyan oo qof ayaa booqday sanadka 2021 iyadoo saameyn aad iyo aad u badan oo saameeyay coronavirus iyadoo laga yaabo hadaysan coronavirus ama saameyntiisa ay jir lahayn in dalxiisayaal intaan ka fara badan daawade ay booqan lahaayeen dalka China balse sanadkan dawladda China ayaa dhaqaalo yari dareemayso maadaama ay dalxiisayaashii hore u soo booqan jireen dalka China ay aad hoos ugu dhaceen daawade kaalinta saddexaad waxaa soo galay United States of America ama Mareykanka saa uu taqaanaan Mareykanka oo ah dalalka aadka ugu qurux badan ahna ku jirana dalalka dunida ugu quwadda badan ayaa waxaa soo booqda sanad kasta dalxiisayaal aad iyo aad u fara badan sanadkan dalka Mareykanka waxaa soo booqday 79.6 milyan oo qof iyadoo aad ogsoontiin badhamaantiin in dalka Mareykanka ay saameyn aad iyo aad u fara badan ay ku yeelatay coronavirus haddana waxaa sanadkan soo booqday 79.6 milyan ayaa soo booqatay dalka USA iyadoo dawladda Mareykanka ay dhaqaale aad iyo aad u badan ka sameysay dalxiisayaashaas waxayna sanadkan soo cariirisatay kaalinta saddexaad dalka Mareykanka iyadoo laga yaabo sanadada dambe inay ka hormari doonto ama kaalmaha ugu horeeya geli doonto maadaama uu yahay dalalka ay ka mid tahay dalalka dunida ugu quruxda badan daawada waxaa kaalinta labaad soo galay Spain dalka Isbaanishka ayaa kaalinta labaad soo cariirisay sanadkan iyadoo ay booqdeen dalxiisayaashii dunida aad ugu badnay markii si aan loo fiiriyo daawada dalka Spain maadaama kaalinta labaad soo galay kaliya waxaa ka horeeya hal wadan sanadkan waxaa booqday dad aad tiradooda ay gaarayso 82.7 milyan oo qof 82.7 milyan oo qof ayaa soo booqday dalka Spain caasimadiisa Madrid iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka Isbaanishka waxayna soo cariirisay sanadkan 2021 kaalinta labaad iyadoo dawladda Spain ay ka sameysay dalxiisayaasha dhaqaale aad iyo aad u fara badan waxaa sanadkan kaalinta koowaad soo cariirsaday dalka France ee caasimadiisa Paris waxaana soo booqatay dad tiradooda ay gaarayso 89.4 milyan oo qof iyadoo saas ay ku noqonayso dalka France dalkan ugu dalxiiska badnaa sanadka 2021 iyadoo jirtay saameynta coronavirus daawade intaan muuqaal la mid ah ku kulmi doono waa anigoo Cabdullaahi Nasta oo niga tagay sidaas nabadgelyo